السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله تعالى maanta waxaynu soo gudbinaynaa talo kooban oo ku socota ardayda shareecada barata. Talada kooban waxay tahay oo odhanaysaa ardayga shareeco baranaya ama diin baranaya uma subana ama wanaagsana akhbaarta iyo wararka inuu la socdo. Qodobadan soo socda baanay ugu wanaagsanayn ruuxu inuu la socdo akhbaarta iyo wararka. Kow warku dhammaan maayo maalin walba war baa taagan xilli walbana war baa soconaya oo marka waxa weeye meesha yaalla. Marka war walba inaad la socoto oo raadiso oo aad ka hawlgashaa waxay kaa qaadanaysaa waqti ka qaadanaysaa. Laba culimadu waxay yiraahdaan al-akhbaaru muharaqatul umr. Umrigaaga sheeqinayaan oo baabiinayaan. Waxna dheefi maysid oo ka faa'iidi maysid. Muxuu ahaayay waxna kaalama maqna oo aqoon ka xasilin maysid. Waa dhacdooyin dhacay iyo hebel baa sidan yiri hebel baa sidan yiri. Saddexaad waxa weeye ta'siir kuma lihid saameyn kuma lihid. Wax ta'siir oo saameyn kuma lihid akhbaarta. Ya akhbaartan sheegaya siyaasiga ah ma ogtahay lagu aafaysan yahay telefishinada iyo wararka lagala socdo. Kow mar dad arday tahay oo shareeco baranayso diin baranayso waxa ku wanaagsan inaad ku mashquulin wararka aad ku mashquulin baa ku qurux badan. Taladaasina taa iyada ah weeye culimaduna aad bay u soo dhaweeyaan. Laakiin taa waxa ka sii liidataba ardayga maanta Soomaaliyeed la socda waaqaca siyaasiga ah ee Soomaali leedahay waa ka ugu liitaa filayaa waayo siyaasadeenan iyo wixeenan oo dhan baa iska wax liita ah oo shakhsi laga hadlaya iyo wax la isticmaalaya iyo muxuu ahaay hawl iska liidato noocaas oo kala ah bay iska noqotay qofkuna qabyaalad iyo qurun kama badbaadayo asla hadduu raacraaco la socdo akhbaartayda marka ka reebtoonaada manhaj samayso wax akhri masaa'ilka iyo cilmiga iyo shareecada dhexgal wax dhageyso laakiin kulama talinayo inaad muxuu ahaay dhex gasho akhbaarta raacid aad baan idin salaam